Somaliland yaa waay waa su'aal fiican laakiin idab daradeeda la socoto sababta uu dhahayo xitaa khusala ku soo dartay so I can guarantee you ina ogtahay boqolkiiba Somaliland inta tahay laakiin sababta oo dadka badan su'aalada khaldan u weydiinayaan waxay tahay inay history ka haaninba Somaliland soo cashirkan dhageyso mise meel ku qoro 1887 ilaa June 26 British agumeysanaysa Somaliland just like sida Soomaali agumeysanaysa Italy حساب ahaan hadaa u ka kala gareena waxay tahay 73 years toddobaatan iyo 3 sano independent iraadinayeen shan maalin ka bacdi July 1st 1960 Somalia independent qaadatay from Italy markaas Soomaaliya iyo Somaliland ay wada fadhiisteen shir ay sameeyeen sida union country ay ku noqdaan hal wadan inay sameeyaan horumar ay ku gaaraan cidna dambo ee saas ugu soo weerareen soo labada wadan independent ay qaateen 1960 say u socdeen ilaa 1991 Somaliland waxay soo istaagtay ani wadan gooniyaar waa inaa ahaado sida koodii ahay sababta Somaliland qaarkaas ay u qaadatay waxay ahayd 1981 ilaa 1991 Somaliland waxa laga dilay more than 100,000 people boqol kun qof wax ka badan aa laga dilay Soomaaliya ka dishay waxaas adduun weynahan ay dhahan genocide wixii hadda Falastiin iyo Israa'iil dhaxdooda ka dhacay marka 1991 Somaliland waxay dhahday enough is enough that's it walaatinimo waarabe laakiin walaatinimo meeshan iniga ilbaab mu u furin xal mu u sameeyeen kursi mu u sameeyeen soo wadankaygaana khana sida koodii ahaa British aan iyo haasatay adigana Italy ku haasatay Djibouti Faransa haasatay qof walba waa kala go'neen sidaas oo kala go'naano meeshaas salaamullah ku ahaano marka Somaliland way go'day maxay sameysatay su'aasha meeshan Italy ay tahay dawladooda dastuurkooda madaxweynahooda lacagtooda baasaboorkooda universityashooda jaamacadooda university marka idin dhahayo 1991 hal jaamacad ku taalo Somaliland maanta la joogo waxa ku taalo over 34 jaamacad wax ka badan ku taalo hadda aan qaldaneen iyo askarigooda dabdamiskooda isbitaalyaashooda iyo businessyashooda import export wax la ay sameeyaan ee dawladyaasha adduunka ee business la sameeyaan so ujeedkayga meeshan waxay tahay respect people guusha ay soo gaareen ku ixtiraam sidaasna ani aan arko inay fiican tahay sida labada wadan ee amaan ay kula lahaayeen ee berito labada wadan qofkii wax ku dhaco qofka kale uu hooyo karo oo la soo marti qaadi karo that's what I believe si baan ku sistay